السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتكم حرا جنال كمركز السود وهذا آدي هذا ومهتسنتهين مقال كان حرب إن نذكر وذا قضى بدر ورهوي كم تهي جروب 5 100 لوذا جوجي أرنتاسي وضد بدن يسوي دينيين سدوا كلنا إن هواني دي مدحضة كاهد أورو كيفيدنا ورفيجر إيمي باكي سالم سعيد ومحكمة وقسعتي مقالة مينيابوليس إن أي حير إلارياشو أما دعوة ويشو كيسكو دي سوق بقبيين مرقاتياشي أي أويريين haddana dhinaca qareenada difaacaya labadaasi eedeysane ayaa bilaabaya toddobaadka soo socda in iyaguna marqaatiyaashooda hor keenaan Amy Park oo shalay maxkamadda iyadoo marqaati furahaan u soo istaagtay si ay isku difaacdo waxyaabihii ay sheegtay maxaa kamid ahaa iyo mid kamid ah ayna Soomaalida kale oo iyaguna dambigooda ku eedeysnaa oo dambigiisa qirtay waa ninkii lagu eedeeyay in qof marqaati ah uu isku dayay inuu la hadlo laba toddobaad ka hor dambigiisa ayuu qirtay Trump amarkan soo saaray muxuu yahay oo wadamo fara badan looga mamnuucayo inay Mareykanka yimaadaan Soomaaliya ma ku jirtaa sidoo kalena waa idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada cumrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana lugeyn karo xilliyada salaada gaadiid ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda Islaamka baridda qaabka loo guto acmaasha cumrada cumreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ma aan awoodin haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona wixii faahfaahintaasi dheer fadlan waa WhatsApp number eber 96454992 waxay maalmahan isoo weydiinayeen dhinaca commentiga group 5 miya la wada joojiyay horta sidaan ogeyn Trump markii uu xilka la wareegay waa kii wareegtadii soo saaray oo 9 maalmood ku joojiyay dhammaan dadkii qaxooti ahaan Mareykanka ku imaanayay maxkamad waa tii diiday toddobaad ka hor oo tiri waa in dib loo bilaabo laakiin raacfaan ayay ka qaateen marka email waxa jiray dadkii group 5 ka ama welcome copies applicationada xareeyay ay team welcome copies ay la wadaageen oo ay leeyihiin wasaaradda arrimaha dibadda gabi ahaanba group 5 waa ay joojisay amaba private sponsorship groupkii waxaana ay leeyihiin arintaasi dacwad ayaa laga gudbiyay oo hadda maxkamad ayaa arintaasi loo gudbiyay marka wali hubanti la'aan ayaa ka jirta in group 5 uu sii socon karo iyo in kale marka waxay leeyihiin arintaasi waxa si aad ah ayaan uga shaqeynaynaa si aan u difaacno dib u dejinta qaxootiga iyo sidoo kale xornimada uu qof kasta u leeyahay inuu dadkiisa soo dhaweeyo mana joojinayna dagaalkan ayay leeyihiin ilaa ay wax ka soo baxaan marka sida darteed waxay leeyihiin maxkamadaha kiisaskaasi wali waa ay socdaan mar sidoo kalena dadku wali waa ay ku lug lahaan karaan inay xildhibaanadoodii la xiriiraan iyo in kale marka arintaasi wasaaradda arrimaha dibadda ayaa markii hore barnaamijkan group 5 ka bilowday marka wasaaradda arrimaha dibadda anytime ayay joojin kartaa marka arintaas waxay leeyihiin maxkamad ayaan u gudbinay go'aanka maxkamadda ayaana sugaynaa si dadkaasi qaxootiga loo fasaxo marka group 5 xaalkiisu wali ma sugna haddii xitaa Trump uu qaxootiga dib u fasaxo waxa laga yaabaa in group 5 gabi ahaanba wasaaradda arrimaha dibadda ay joojiso haddii arrimahaas ay wax ka soo kordhaana waa idila soo socodsiin doonaa laakiin emailkaasi ayaa jiray loo soo diray dadka in group 5 ka xareeyo applicationada xareeyo arintaasi haddii halkaasi aan kaga gudbo dacwadii magaalada Minneapolis uga socotay haweeneydii madaxda ka ahayd ururkii Fiidina warfiijira Amy Park iyo Salim Saciid oo milkiilayaasha maqaayadda Safari kamid ahaa ayaa toddobaadkii afraad oo shalay soo gabagaboobay waxa jirtay in labadii maalmood oo u dambeysay marqaatiyaashii u dambeeyay ay dacwadoogayaashu ay u yeerayeen waxa kamid ah in FBI-da ka tirsan oo dhinaca xisaabaadka qaabilsan ayaa waxa loo yeeray Khamiistii iyo waliba shalay galinkii hore oo Jimco ahayd marka waxa uu ka hadlay lacagaha la lunsaday iyo qaabka loo lunsaday waxyaabahaas ayuu ka hadlay wadada Lake Street waa yaqaanaan Soomaalida oo Carmel hormarta waxa uu FBI-da sargaalkan ka tirsan oo dhinaca xisaabaadka qaabilsan uu yiri waxa ku yilay 21 goobood wadadaas Lake Street oo kaliya oo 21 kaasi goobood baladahayo cunto ayaa caruur lagu siiyaa waana 1.8 maal xitaa 2 mayl ma dhama ayaa 21 xarumood oo cunto laga bixiyo ay ku tiilay waxaana lagu lunsaday lacag gaaraysa 34.3 milyan ayaa dadkaasi goobahaasi cuntada sheeganaya inay ku bixinayeen la siiyay 59,000 oo caruur ah ay sheeganayeen in quraac iyo qada ay siinayeen maalin kasta waxaana leeyahay magaalada Minneapolis degmadaasi dhan iskuuladeeda ardada aada waa 33,251 iyo xilligaasi ahayn marka dad caruurta ay cuntada siinayeen ayaa ka badan caruurta iskuulada dhigata sida sargaalkan FBI-da uu sheegay marka waxay u muuqataa in Feeding Our Future
in ardada Minneapolis wax ka barata oo ay sheeganayeen inay 1.8 mayl oo kaliya in ay ku quudanayeen dhammaanba ardada iskuulada Minneapolis dhigata. Marka 20 milyan ayaa sidoo kale waxa la leeyahay oo lacag ah 20 milyan oo dollar waxay aaday shaqaalaha Feeding Our Future. Marka yaa lacagtaasi bixiya ayaa la weydiiyey booskiyo ahaa Amy Back ayuu ku jawaabay sargaalkaasi. Sidoo kale waxyaabaha la soo ogaado waxa kamid ah Amy Back ninkan oo madowga ah oo saaxiib ay la ahayd xilligaasi in ay siisay 878,000 oo dollar in accountigeeda intay ka dirtay accountigiisa ay ku dirtay. Amy Back ku dhawaad lacag 2 milyan oo dollar 1.9 milyan oo iyada cake bag iyo siyaabo kale ba ku heshay loo maleynaya inay ka heshay Feeding Our Future. Marka waxa la leeyahay accountigeeda ay 878 lacag 900 ku dhow ay ka dirtay waxayna ku dirtay account la yiraahdo Handy Helpers. accountigaasi muddo 2 sano gudahooda ay lacagtaasi ku dirtay. lacagtaasi accountkaas waxa iska lahaa nin saaxiib la ah ninkan aad u jeedaan oo saaxiibkeeda ahaa. Marka lacagahaas waxa la leeyahay 212,000 si cash ah ayaa accountigaasi loogala baxay 169,000 sidoo kalena waxa lagu wareejiyay account qof shakhsiya uu leeyahay halka 128,000 shopping iyo vacation Las Vegas iyo baabuur la kireysta iyo waxyaabo la gato qaali ah lagu bixiyay. lacagtaasi marka waxa la leeyahay xagee ka timid Feeding Our Future ayay ka timid Amy Back ayay ka timid accountigaasi ayayna sidoo kale ay ku dirtay. marka Amy Back shalay marqaati furahan ayay maxkamadda u soo horjeestay. shalay maxkamaddu markay gabagaba ahayd around 3:45 daqiiqo qareenkeeda ayaa marka su'aalo weydiinaya. qareenkeedu wuxuu waxaan kula taliyay inaysan marqaati furahan maxkamadda aysan u hor imaanin oo aysan marqaati furin laakiin iyadu waxay ku adkaysatay in ay maxkamadda hor istaagtay isla markaana istifaacdo arrintan wax luga aysan ku lahayn. su'aalo fudud ayaa shalay maadaama maxkamaddu gabagaba ahayd la weydiinayay laakiin toddobaadka soo socda ayaa waxa bilaaban doonta in xitaa in dacwadoogayaasha loo ogolaado inay su'aalo weydiin karaan. qareenkeedu waxyaabaha weydiiyo waxa kamid ahaa in xagee goorma ururkaada aasaastay meeqa shaqaalaha ay ka shaqeynaysa ilaa ku dhawaad 100 shaqaalaha ay sheegtay sanadkii 2021 in ururkan ay aasaastay. waxaa sidoo kale qareenkeedu uu weydiiyey Cabdikariin Iidle waa kuma ayaa la weydiiyey waa program support manager ayuu u ahaa gacanteeda midig ayuu ahaa ninkaas oo hadda wadanka ka baxsaday laakiin dacwada lagu soo ogay waxay ku tilmaantay horrible person inuu ahaa qof aad u xun inuu ahaa Cabdikariin Iidle waliba xilligaasi in xoogaa ilimeynaysa ayaa la dareemayay. sidoo kalena waxa la filayaa in marqaati furkaas toddobaadka soo socda iyada su'aalo la weydiin doono isniintii talaadada maxkamadda ma jirto arbacada ayaa dib la isugu soo laaban doona oo maxkamaddu ay dib u bilaaban doontaa laakiin Amy Back waxay go'aansatay in iyadu maxkamadda soo hor istaagto isla markaana ay isdifaacdo. sidoo kalena Cabdinaasir Maxamed Abshir oo 33 jira oo isaga shalay maxkamad ka soo hor muuqday maadaama lagu eedeeyay in qof marqaati uu isku dayay 2 toddobaad ka hor inuu maxkamadda gudaheeda kula hadlo ayaa dacwadiisu la filayay bisha Abriil afraad inay bilaabato laakiin shalay dambigiisa ayuu baqirtay qofkii 37 ee kamid ah 70kii qof ee dacwadda lagu soo oogay kiiskan 250 milyan oo dollar oo dacwadiisa ama dambigiisa qirta ayuu noqday. marka sidaas darteed asagana garsooraha ayaa go'aan ka gaarin doona xilliga la xukumi doono sanadkii 2022 ayuu horay wax u yiri dambi ma lihi laakiin shalay dambigiisa ayuu mar kale qirtay in Cabdinaasir Maxamed Abshir iyadoo sidoo kalena lagu eedeynay in qof marqaati oo Sharmaaka Ciise 2 toddobaad ka hor isku dayay inuu yiraahdo nakeen musqushaan ku wada hadalnay arrintaasi oo mamnuuc ka ah dadka dacwadda oo socotay iyo kuwa sidoo kalena dacwad sugayaasha. ugu dambeyntii Trump waxa la filayaa inuu soo rogo amar mar kale wadamadii travel bank uu soo rogo wadamada red listiga ku jira oo qadka cagaaran ku jira waxa kamid ah Sudan, Venezuela, Soomaaliya, Syria, Yemen, Iran, Libya, Cuba iyo North Korea waxaana lagu soo dari doonaa Pakistan iyo Afghanistan. red listiga ay wadamadaasi ay ku jiraan. sidoo kale wadamada orange-ga ku jira waxa kamid ah amaba yellowga waa la xadidi doonaa imaashahooda wadankan Mareykanka halka kuwa yellowga ku jirana ay sidoo kale 60 maalmood ay haystaan waxyaabaha dowladda Mareykanku ay uga baahan tahay in ay ku saxaan. sidoo kalena waxa jirta in Trump xilligii hore madaxweynaha sanadkii 2017 oo wadamada Soomaaliya ay ku jirto travel bank uu ku soo rogay laakiin hadda waxa uu ku amray wasiirka arrimaha dibadda Marco Rubio iyo sidoo kalena wasiirka amniga gudaha Kristi Noem wasiirka cadaaladda Pam Bondi iyo taliyaha nabad sugidda Tulsi Gabbard in muddo 60 maalmood gudahooda
amarkaasi ay ku soo sheegaan wadamada loo baahan yahay in amarkaasi lagu fuliyo iyadoo sidoo kalena ay dowladdu ay sheegtay inay dadka muwaadiniinta Mareykanka ay ka difaacayso weerarada argagixiso oo dadka sharci darrada wadanka ku soo galay laga yaabo inay geystaan ammaanka qarankana la ilaalinayo sidoo kalena dadka ideology-ga Mareykan nacaybka ay ku jirto fikirkooda dadka Mareykanka inay nacab yihiin iyo sidoo kale dadka sharciyada immigration ku xadgudbaya dhamaantoodba looga goleeyahay travel bankan inuu saameeyo Trump xitaa hadda waxa uu bilaabay xilligii Gaza dagaalku uu ka bilowday jaamacadaha Mareykanka waa tii laga mudaharaaday in viisayaasha uu kala laabto ardaydii mudaharaadkaasi sameeynayay qaarkood jaamacadihii laga sameeynayay dowladda federaalka lacagta ay siinaysa in gabi ahaanba uu jijiyo hadda jaamacadda Columbia ay ka mid tahay marka ardada sidoo kale la sheegay inay ku lug lahaadaan fiisaha waa laga laaban doonaa ICE ayaa gacanta loo gelin doonaa kadibna ICE waa ay masaafurin doontaa sidaasi ayaa hadda maamulka Trump uu leeyahay arday kasta oo lagu arkay in ururka argagixiso ay mudaharaadayaan oo ay taageerayaan wadan kale la kiimido fiisa waxbarasho wadanka ku joogay waa laga laabanayaa catch and revoke ayaa la yiraahdaa waa la soo qabanayaa fiisaha laga laabanaya kadibna waa la masaafurinaya